soo laabashadii raaxada iyo xamaasadda soo laabashadii quruxda badnayd ee wareegga labaad oo holaca oo aan ictiraafaynin ilaa iyo kuwa guulaysta oo gudba rubuc dhammaadka tartanka koobka UEFA Champions League kuwa dhimanna waa kuwa haraya oo ka baxaya albaabo ciriiriya talaado holaca iyo arbaco raggii martida ku ahaa tartanka ilaa iyo aysan dhicin lama filaan oo Mourinho iyo Tottenham ra'yi kale aysan lahayn Borussia dhulkii Dortmund waxay kaga soo dirtay digniin lahjadeedu adag tahay naadiga PSG Paris Saint-Germain kadib markii ay xaqday naadiga Eintracht Frankfurt afarley nadiif ah iyo hogaaminta ninka dhawaangalka Erling Haaland ee ka yimid galbeedka ifaya seefta afaysan oo wata katiibad diyaarsan oo heegan buuxa loo geliyay sidii dhulka ay ula jari lahaayeen amiirada Paris iyo gudbidda wareegga rubuc dhammaadka oo ay ku sii wadanayaan ismiidaamin aan sahlanayn oo leh dareen daawasho oo soo jiidasho leh ama Paris Saint-Germain mar kale ay nasiibkeeda eegi doonta iyadoo u safri doonta raadinta koob dartii qarash badan ay u galeen una keeneen xidigo lagu daray xidigo isku day noqoshada iyo galidda naadiyada ugu waaweyn Yurub kuwaasoo ku guulaystay koobka loogu jecel yahay ee dhagaweynaha UEFA Champions League caqabada Paris hortaagan ayaan ahayn cunto carab saaran balse waxay leeyihiin xidigo xoogan waana Dortmund haddaba waa lug hore oo holaca iyo soo laabasho laga wardhowrayo safarka ayaa halkan ka bilaaban doona si uu u soo dhammaado 11 ilaa iyo 12 Maarso si uu ugu bilowdo challenge kale guulaystayaasha gudbay sidee ayay ahaan doontaa wejiga lugta hore iyo ifafaalaha ay wadato yaa go'aamin doona dagaalka lugta hore kulamada ugu waaweyn ee Lever iyo Atletico dhulka Spain yaase tallaabo u qaadi doona dhanka u gudbidda kulanka Paris Saint-Germain iyo waliba Dortmund oo ku kala hubaysan xidigo aan qiimahoodu yarayn isla markaana lacaga fara badan lagu soo beelay bartamaha garoonka Signal Iduna Park su'aashan iyo kuwa kale waxay jawaabahoodu iman doonaan fiidnimada talaadada caawa 18 February 11 geeska Afrika Liverpool kacdoonka ifaya Yurub waxay u soo noqonaysaa mar kale inay dul heabto samada qaaradda duqda iyagoo sare u haya boor astaantiisu tahay ma jirto naxariiso la farqi dhibcaha Premier League uu gaaray Liverpool iyo tan ku xigtay 25 dhibcood oo aan qalooc lahayn si ay riyada koobkan u noqoto mid ka dhow kii hore Reds ayaa u baahan kaliya 6 kulan si loogu caleemo saaro koobkan qasnadeedu ka maqnaa ku dhawaad 30 sano Jurgen Klopp iyo kelmadda sirta bandhiga cajiibka ee Reds sabarkiisa iyo rumaynta iimaanka laacibiintiisa waa awooday in badan uu kula guulaysto kuna hogaamiyo horyaalka dalkaasi 2 xil ciyaareed oo xiriir ah si uu ugu daro koobka Jarmalka kadibna uu lumiyo dhammaadka Champions League naadiga Bayern kadib imaanshihiisii Anfield xil ciyaareedkiisii ugu horeeyay Lever wuxuu ku hogaamiyay dhammaadkii League Cup-ka iyo finalkii Europe League laakiin nasiib xumo labaduba waa uu waayay laakiin mar kale ayuu finalka Champions League tagay balse markan waa Liverpool oo wajahaysa Real Madrid balse mar kale rajadaasi burbur ayay ku soo afmeerantay kadib markii dhagaweynuhu sare u qaadeen saaxiibada Ramos laakiin sanadkii 2009 waxay noqotay sanadkii nasiibka Jarmalkan waxa uu helay riyadii uu tamaninayay koobka UEFA Champions League iyo 3 sugan kaalinta labaad ay Premier League ku heleen dhibcihii ugu dheeraa ebi taasoo gaartay 97 dhibcood gadaasha Manchester City waayaha Klopp iyo Liverpool ma ahayn xaladhalay bal shaqo daraasaad leh la qorsheeyay oo la dhigay iyo samir xagga laacibiinta oo ay keeneen ilaa iyo wixii laga doonay natiijaduna waxay noqotay koobab iyo rikooro Liverpool xilligan waa boqorada Yurub Kloppna waa tababaraha ugu fiican caalamka sanadkan ma jirto koox England oo rajo ka qabtay inay ka hor istaagaan shayaadiinta Anfield horyaalka Premier League ee maxalliga ama u tartamida koobka Yurub iyaduna waa mid u noqon doonta dhiirigelin saaxiibada Salah
iyadoo caqabada ay tahay Spanish khiyaaliya Athletic Madrid soo aan u jeedin wax ka qeyr badan dhagaweynaha bedelkeeda ka gudbida rajabeelka si ay u sii wataan ismiidaamin haba ahaato xisaabta boqorada haysata koobkan sanadkii hore gaar ahaan Roque Blanco soo gaartay 2 jeer 5 sano ugu dambeysay finalka koobkan balse dariskooda ayay u waayeen labaduba waxay maraysaa maalmihii ugu wacnayd Liverpool sidoo kale waxay la nooliyeen waqti uu leelinayo mid ka mid ah kuwii ugu fiicnaa ee taariikhda soo maray waana Jurgen Klopp gacan ku dhigid maxalli iyo rajaynay sameeyaan wixii sanadkii hore ay sameeyeen iyo ka argudasho nasiib ku madax adeegay Klopp oo ka xarimay 2 koob oo Champions League waliba 2 naadi oo kala duwan midka hore waa Borussia Dortmund waqtigii uu joogay oo Bayern ay ka qaaday midka labaadse waa Liverpool oo Real Madrid ay u waayeen laakiin markan hadafka Liverpool ayaa fursad in albaab weyn ay ka wada galaan Yurub iyo maxalliba haddaba miyay gaari doontaa Liverpool xaqiijinta riyada ugu weyn ee rikoorkii Manchester United 1999 iyo safkii Sir Alex Ferguson markaasoo Champions League iyo 2 maxalli FA iyo Premier League ay isugu keeneen qalcadda masraxul axlaam ama masraxa riyada mise tartamayaasha kale waxay leeyihiin ra'yi kale fadlan aragtidaada noogu reeb muuqaalka hoostiisa magacaygu waa Cabduqaadir Qayska ogeysiis guddiga gacanta ku haya dhismaha maktabadda buugaagta ee Burco Library waxay ka codsanayaan dhammaan dadweynaha adduunka daafihiisa meel kasta ay ka joogaan inay ka qayb qaataan dhismaha buqacadda u muhiimka ah dadka ku dhaqan gobolka Togdheer gaar ahaan caasimadda Burco haddaba dhismaha ayaa u kala bixi doona dhowr qaybood oo kala ah qaybta dadka waaweyn qaybta caruurta iyo guud ahaan qaybaha kale ee ardayda iskuulada iyo jaamacadaha dalka waxa kale oo ku jiri doona masjid lagu cibaadeysto sidoo kale qaybta keedinta hidaha waxa kale oo ku jiri iyo qaybta dhalinyarada ay ku ciyaarto youth waxa ku jiri doonta qaybta jimicsiga ee gymka hadii uu Rabbi raali ka waxa walaal inay ku noqon doonto wax kasto aad la baxday sadaqo jaari ah oo ka qayb qaado dhismaha library-ga ee Burco Library iyadoo dadka meel kasta ay joogaan laga codsanayo inay ka qayb qaataan dhismaha iyo dhameystirka library-gan waxaan jecelahay inaan ogeysiiyo dadweynaha reer Somaliland gobolka doonaan baa ka soo jeedeen degmada doonaan baa ka soo jeedeen inuu socdo mashruuc ah maktabad laga dhisayo magaalada Burco oo guddideedina qaar halkan joogaan anigoo ah chairman-koodii oo ku hadlaya magacooda waxaan jecelahay dadweynaha reer Somaliland iyo madaxda iyo madaxweynayaasha mustaqbalka arrinta inaan ugu taageertaan haddii Ilaahay ka dhigo library-ga Burcana annaga oo cidnahaana $1 baan ku deeqnaa insha Allah ta'ala waan aragtaa mashruucu inuu dhowr qaybood kale leeyahay laakiin waxa soo dhan waxa weeye inuu ilmihii waliba ma aragtay oo Soomaaliland jooga particularly regionka Togdheer uu iman karo meel uu wax ku barto uu buug ka helo buugta adduunka u casrisan haday noqoto diin iyo haday noqoto aqoon kale oo ma aragtay maadiyo ay kororsanayaanba in aad taageertaan oo aad xooggiina gelisaan waayo waa caasimadii ku xigeentii labaad marka inaynu meesha dadku ka soo baxayaan in loo sameeyo library guddideedii way joogaan gacanta ayay ku hayaan marka waxaan idin ka codsanayaa inaad taageertaan oo aad si xoog leh aad u taageertaan library maqallo ama maktabad maqallo waa meesha naftana lagu kobciyo caqligana lagu dabiibo oo naftu caloosha cunto u baahan tahay
dawana caqligu waa u baahan yahay cilmigu marka iyo wax akhrisku waa cuntadii iyo dawadii nafta iyo caqliga burco magaaladii aan macallimadda ka ahaa iskuulkii burco aan ku soo barbaaray marna macallimad ka ahaa in maanta laga wado in laga furo library ama meel lagu kaydiyo buugaagta cilmigu waa waxa ugu qiimo badan sidoo kale wixii tabarucaada waxay ku soo hagaajin karaan ciwaanada shaashada ka muuqda